waxyaala waxaa jiro soonkaaga burinayo. haddaan si kale u dhigo wax haddaa samaysid soonkaaga waxba ka jirin inaad gudid lagaa rabo. waxyaalo kale waxaa jiro soonkaaga ajirkiisa kaa yaraynayo. si kale haddaan kuugu dhigo, soonkaa soontay baahi iyo oon unbaa helaysaa, hal ajir ma helaysid. haddaba waxyaabahaas maxay yihiin? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولجوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة أفراد أو برنامجكي أها بشهر رمضان إيو أحكامتي. ولا يصدح دي حلقة الله صودا في وحان كسو شاكيني بشهر رمضان صون كذا إي فضل يسو نور إي طبعا فضل يا شاكيني طلبنا وحان كسو شاكيني صون كحكم كيس محاواي إي واجب كتهاي. saddexaadna waxaan kasoo sheekeynay arkaanta soonka uu ku taagan yahay, tiirarka uu ku taagan yahay, oo haddaa mid ka mid ay ka tagto soonkaaga waxba ka jiraynin maxay yihiin. maantana waxaan ka sheekeynaynaa soonkaaga maxaa burinayo ama ajirkiisa yaraynayo. waxyaalaha soonka burburiyo fasahaadiyo waxaan u qeybinaynaa 3 qeybood. qeybta koobaad ugu weyn haddaa samaysid maalintaas waa gudaysaa, kafaarana waa lagaa rabaa, inaa ilaahay u toobad keentidna waa lagaa rabaa. qeybta labaad waxaa waaye soonkaaga waa burburina, maalintaas inaa gudid waa ku qasban tahay, intaasaa lagaa rabaa. qeybta saddexaadna waxaa waaye soonkaaga ajirkiisuu yaraynaa, lagaagama baahna maalintaas inaa gudid, laakiin soonkii waxaa ka qaadanaysaa baahi iyo oon, wax ajir ah ku leedii haba yaraatee ma jirto. haddaba 3daas qeybood maxay kala yihiin? qeybta koobaado ugu daranu ugu xunu ugu weyn waxaa waaye qofka asigoo sooman inuu xaaskiisa jimaac la sameeyo. hadduu jimaac sameeyo maalintii habeenkii ilaah u baneeyey, laakiin طuluucu الفجر ilaa غuruubi الشمس intaas intuu dhexayso qofka hadduu xaaskiisa u tago dembi weynuu galay, maalintaas waa ka fasahaaday. cuntana ma cuni karaya, laakiin soonkii waa burburi maalintaas. sidaa darteed waxaa laga rabaa marka maalintaasna inuu gudo. markuu soonka dhammaada kadibna 60 maalmood isku xigto inuu soomo. hadduusan awoodin oday noqday ama isku dardarsamayna ama jiro ku dhacdayna waxaa loo baahan yahay 60 qofood inuu cunto siiyo. waa dembi weyn. iska ilaali xaaskaaga inaa u tagtid in bisha ramadaan maalinteeda. rasuul sallallahu alayhi wasallam qofa u yimid yaa rasuulallah halakt yaa rasuul waa halaag samay. rasuul wuxuu maxaa ku halaagay? markaas uu waqacad fi imraati, xaaskayga u tagay anigoo sooman. rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri marka adoon xoreyn kartaa? markaas uu yiri maya, ma baliha awoodaas. 60 maalmood isku xigta ma soomi kartaa? wuxuu yaa rasuul dha'ifa ah, ma soomi kar maalmahan xabad xabad abi dhibaysa. idan 60 qofood cunto sii waaye marka. xadiidkan waxaa soo saaray Bukhaari iyo Muslim. taas macnaheeda ma aha qofka hadduu iskontarooli karo xaaskiisa inuusan dhunka karin, ma ahan. maya, waxaa loo diidan yahay inaad jimaac samaysid. haddaa ogtihid inaad iskontarooli karin, ka fogow xaaskaaga bisha ramadaan, at least maalmihii ka fogow. haddaa iskontarooli kartidna wax dhib malaha, qofka xaaskiisa wuu dhunkan karaay, hagna wuu sii karaay, wax dhib ama ceeb ku jirto ma jirto. dhalinyaro iyo oday iyo ma kala laha, qofka awoodiisay ku xiran tahay. haddaa ogtid inaad isxukumi kartidna wax dhib malaha. haddaadan ogatahay inaad isxukumi karin, stay away from her, hawo dhawaani, ka fogow. qeybta labaad oo haddaa mid ka mid samaysid maalintaas soo gudaysid waxaa waaye arrimahan soo socdo 6 si fiican u dhageyso. tan ugu horeyso soonka burinayso waxaa waaye al-aklu camdan, qofku inuu cunto soo qaado uu cuno kas uu cuno. hadduu saa sameeyo soonkiisa waa buray. tan labaadna waxaa waaye ashurbu camdan, qofkan biyuu soo qaatay wuu cabay asigoo og inuu sooman yahay, wuu gatay ama talaajada ka soo baxsaday wuu cabay biyahaas, qofkaas soonkiisa wuu buray. tan saddexaad waxaa waaye wax kasta oo booska cuntada ama biyaha galaayo, qofka wiigu noqday, dhakhtaruu tagay, faleebaa lagu soo diray oo muqadiyada ah, taasna soonka way burinaysaa. iyo cabitaanka iyo shahwadan inay xaraam tahay xadiidkana noo sheegay. rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yatruku طعامه وشرابه وشهوته لأجلي.
cuntadiisa iyo biyihiisa iyo shahwadiisa wuxuu aga tagaa liajligayga ayuu aga tagaa sidii ajir loo siiyo. xadiidkana saxiixaynka ayuu ku jiraa. tan afraadna waxaa alqayu camdan, kasuu isu mantajiyey. habeenkii la kari waayey, wuxuu malay makhzan inuu leeyahay cunta iyo biis uu cabaayay. maalintii markii la gaaro calooshaasuu fuurtay, wuu dhaqaaqi waayey, wuu isu mantajiyey. haddaa kas isu mantajisa soonkaaga waxba kama jiro. nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yihi man daracahu lqay, qofkii matagay kasoo baxdo falaysa calayhi shay, wax laguma laha. waman istaqaa'a camdan, qofkii ismantajiyane facalayhi bilqadaa, qofkaas waxaa laga baahan yahay marka inuu gudo, oo kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam. xadiidkan wuxuu ku jira saxiix aljaamic. tan shanaadna waxaa waaye qofka inuu meni iska keeno, siduu raba isaga keeno, ama xalaala isaga keeno ama xaraama isaga keeno, soonkiisa wujaba meni hadduu iska keeno waaye. tan lixaadna waxaa waaye gabadha inay ka timaado dhiig caado ama ay dhasho dhiig dhalmeedka uu ka yimaado, haddii wax yar ka dhimanta xataa maalintaas. qeybta saddexaad, soonka aan jibinaynin laakiin ajirkaaga yaraynayso. way tiro badan yihiin, dadka badina way sameeyaan. iska ilaali saa soonkaa soomaysid ajir aaga heshid. haddii kale wallaahi maalintaas dhan aada soomantiid 12 saacadood ama laga yaabo 20 saacadood inaadan wax ajir aadan ku helin. soonkii markaa afurtid baahi iyo oonan baa kugu dilay. iska ilaali arrimahaas saa soonkaaga ajirkiisa u heshid, khayr allah ku siiya. arrimahaasna hal siyaan kugu sheegaa. arrimahaasna saan kuu sheega waa badan yihiin. waxaa ka mid ah xantaa ka mid ah, beentaa sheegaysidaa ka mid ah, heesta aad dhegaysanaysidaa ka mid ah, hadalka maalayacniga ku hadlaysidaa ka mid ah, filmaantaa fiirsanaysidaa ka mid ah, waqtigaa dhuminaysidaa ka mid ah. si kale haddaan kuugu dhigo, wax kastoo xun iska ilaali oo ugu horeeya carabkaaga inaa wax ka sheegtid. wax kastoo xun iska ilaali inaa maqashid. wax kastoo xun inaa daawatid iska ilaali. wax kastoo xun inaa samaysid iska ilaali. haddaa intaas iska ilaali weysid, soonkaaga ajirka ma helaysid. waxaa noqonaysaa siduu nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam yiri oo kale, man lam yadac qawla azuuri waalcamalu bihi falaysa lilahi xaaja fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah. qofkaan ka tegin qowla zuur, waxyaalaha zuurka oo maalayacniga beenta sheegayo ama ku camal falaayo ama sameynayo, qofkaan ka tegin ilaahay soonkiisa kama rabo. cuntadiisa iyo biyihiisa hadduu rabo ha cabo, hadduu rabo ha iska daayo. macnaheeda ma ahan soonka waajibkeeda inuu kaa dhacaayo, maya. soonka waa lagugu leeyahy inaad soonti waajib ay kugu tahay, laakiin ajirkeeda ma helaysaa? maya. maalintaas ma u baahnid inaad gudid, waajibkii waa kaa dhacay, laakiin ajir ma heshay? maya. waa sidii salaadoo kale, qof qob hadduu siiyo ruknigu waa ka dhacay, laakiin ajir ma helaa? ma khushuucay? mayay noqonaysaa. haddana waqtigii su-aashaa la gaaray. su-aashaana maanta inaan ku weydiiye waxaa waaye, qofka haddii dhegta xanuunayso uu goojo ku dhibay soonkaas ma jabaa? su-aasha labaad rabo inaan ku weydiiyin waxaa waaye, qofka hadday neef hayso oo kan bakaaqa oo lisku siiyo neefta ilaaha naga hayo oo isku buufiyo, soonkiisa ma jabaa? jawaabteeda soo qor, khayr allah ku siiyo. baaraka allah fiikum, jazaakum allahu khayran. waxaan kaa rabaa tan iyo kuwa hore inaad dhegaysatid, ku camal fashid, walaalaha kalene usoo gudbisid. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu xalaqada soo socoto beri insha allah tacaala, iyo aadaabi soom, soonka iyo aadaabtiisa. waxyaala waxaa jirta nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam sameyn jiray oo aada u qiimo badan, ajirna ku helaysid, barakana ku helaysid. haddaba aadaabtaas maxay yihiin? ma rabtaa inaa ogaatid? xalaqada beri ha moogaanin. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكسوعلنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.